waxaan ka banaanbaxayaa sharci darrada waxaan u banaanbaxayaa cadaalad waxaan u banaanbaxayaa mustaqbalkayga waxaan u banaanbaxayaa doorasho inay dhacdo dimuqraadiyaddana ay guulaysato waxaan u banaanbaxayaa xasilooni in la gaaro waxaan u banaanbaxayaa dawlad ka wanaagsan tan hadda wakhtigeeda dhammaaday in la helo waxaan noo ogol dhammaanteen inaan banaanbaxno shucuurteennana cabbirno dastuurka dalka muwaadin soo bax jimcaha oo qayb ka noqo qadiyadda qaranka lagu badbaadinayo inuu yahay banaanbax wanaagsan waxaan rajaynayaa inay banaanbaxdu dhici doono sida loogu talagalay asagoo wax qalaas aan lahayn waana qayb galina banaanbaxa waana taageersanaa si nabad aan maxay diisheegu soo dhaweynayna shucuurtayna hadda muujinayna shacabka oo nahay Muqdisho inaan ka qayb galgalno waa rajaynaynaa oo si oo nabadeed oo u dhaco haddoo banaanbax nabadaysan yahay waa soo dhaweynayna hadana Muqdisho bulshada reer Muqdisho bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho 19 February maalinta Jimcaha banaanbax nabadeed ee lagu qabanayo daljirka Daahsoon inay ka soo qayb galaan kaas oo looga soo horjeedo diktaatoornimada iyo xukun jaceelka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayadoo lagu codsanayo dimuqraadiyadda iyo dalka doorashada 4 sano oo mar la qabanayo si xur iyo xalaal ah inay u dhacdo ka qaali ahaan shucuurteyda muwaadinimo ayaan maalintaas si dastuurka waafaqsan u soo bandhigi doonaa daljirka Daahsoon iyo Jimcaha ayaa noo balan insha Allah